qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jira xubnana ay ka yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii dalka soo maray qaarkood iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo saddexdii maalin ay soo dhaafnay Muqdisho ku lahaa shir ayaa maanta ku dhawaaqay inay sameysteen madal ay ku mideysan yihiin taa ay ugu magac dareen madasha xisbiyada qaran ujeedooyinka loo dhisay madashan waa in aragti mideysan ay ka yeeshaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyagoo go'aansaday in golo sare ay yeelato sida warbaahintu u sharaxay xildhibaan Cabdifitaax Daahir Ismaaciil oo kamid ah xubnaha golaha shacabka. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta saxaafadda isugu yeernay inaan si kooban uga warbixino shirar soo bilaabmay 29 bishan oo maalmaha nooga socday magaalada Muqdisho annagoo ah xisbiyada ugu waaweyn ee qaran ee hadda dalka ka jira shirka maanta gabagabadiisii waxaan ku go'aansanay in madal wada jira loo sameeyo xisbiyada waaweyn ee qaranka maanta waxaan markaa halkan kaga dhawaaqnay structure ama nidaam iyo maxaa la yiraahdaa sidii uu u dhismi lahaa madashaasi sidii ay u dhismi lahayd waxaanu go'aansanay in madashaasi ay yeelato gole sare mas'uuliyiinta ma aysan shaacin tirada xisbiyada siyaasadeed ee ku mideysan yihiin waxaase ay magacaabeen oo kaliya afayeenka madasha kaasoo loo magacaabay Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo hore u soo noqday xildhibaan waxaana ay sheegeen inay sii wadi doonaan shirarka ay yeelanayaan iyaguna dhawaan shaacin doono golaha sare ee madashaasi. Mahad Mutawakkil, Shabeelle TV, Muqdisho.